kow inaan ka baxay ururka taasoo la rabay in la igu dilo. mukhtaar roobo abuu mansuur ku-xigeenkii hore ee ururka al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay loo hadalhayay inuu ka mid noqon doono golaha wasiirada ee ra-iisul wasaare xamse cabdi barre, iyadoo la sheegay in loo magacaabi doono wasiirka awqaafta, arrimaha diinta iyo ka hortagga fikirka xagjirka. sheekh mukhtaar waxauu al-shabaab hoggaankeeda ka mid ahaa xilli ay shabaabku fuliyeen weeraradii ugu adkaa galeenna dagaaladii u saameynta badnaa oo ay isaga hor yimaadeen ciidamada dowladda. bishii julaay ayuu mukhtaar roobo isku soo dhiibay dowladda, isagoona durbadiiba galay ololihiisa musharaxnimo si uu u hogaamiyo koonfur galbeed. laakiin ciidamada dowladda oo garab ka helaya ciidamada itoobiya ee ku sugan baydhabo ayaa gacanta ku soo dhigay sheekh mukhtaar roobo abuu mansuur, kadibna uu soo dhoofiyey muqdisho, iyadoo intaas kadibna loo taxaabay xabsi guri. 14 Oktoobar waxa uu markii ugu horreysay ka soo muuqday shaashadda warbaahinta isagoo dhiig u shubaya shacabkii Soomaaliyeed.